السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa laga yaabaa inaad u baratay inaad tagto dukaanka si aad wax kasta uga soo iibsatid, laakiin maaha arrimahaas mid ka jira dalka Kuuriyada Waqooyi. Sababta xeerarka madaxweynaha majalka adag ee Kim Jong Un ayaa u sababa. Soo dhawaada asxaabta, maanta waxaan ka sheekayn doonaa 10 shay oo aad ka iibsan karin dalka Kuuriyada Waqooyi. fadlan waxaan kaa codsanayaa intaanu muuqaalku bilaabin inaad like saartid, inuu wuxuu naga caawinayaa inuu dad badan gaaro. ku soo dhawow muuqaalkeena. cabitaanka Coca-Cola. cabitaanka loo yaqaan Coca-Cola waa ka mamnuuc dalka Kuuriyada Waqooyi, kana heli maysid dukaanada Kuuriyada Waqooyi. taa beddelkeega waxaad ka helaysaa cabitaanada ay dawladdu soo saarto. xirashada suudka iyo jeaniska iyo dhammaan dharka reer galbeedku waa ka mamnuuc dalka Kuuriyada Waqooyi. kabaha waa ka mamnuuc inaad ka iibsatid wadamada kale ee reer galbeedka. kaliya waxa la ogol yahay inaad soo iibsato kabaha ay soo saarto dawladda ama lagu sameeyo dalka Kuuriyada Waqooyi. moobelada Apple. laguma isticmaalo moobelada shirkadda Apple iyo qalabada ay soo saarto shirkadda Apple. waa ka mamnuuc dalka Kuuriyada Waqooyi iyo shirkadaha kale ee Sony iyo Samsung ba. timo jarida. laguma ogola inaad timo jarida sidaa doontid aad u jaritid. waxaa la ogol yahay 15 qaab inaad u xiratid rag iyo dumarba. joornaalka. lagama isticmaalo Kuuriyada Waqooyi joornaalada kale ee adduunka laga soo saaro, lagumana iibiyo dalka Kuuriyada Waqooyi. waxaa loogu talagalay in laga dhaqo maskaxdooda wadamada shisheeye. iibsashada guryaha. ma iibsan kartid mana iibin kartid adigoona ka haysan fasax dawladda. Christmas tree. geedaha gaalada lagama isticmaalo dalka Kuuriyada Waqooyi iyo u dabaaldegyada diimeedka. waxyaabaha diinta ku saabsan lagama dabaaldego dalka Kuuriyada Waqooyi. McDonald's lagama isticmaalo dalka Kuuriyada Waqooyi, waa ka mamnuuc. kuna arki maysid cuntooyinka McDonald's. waa shirkad aad u weyn oo adduunka laga isticmaalo. sigaar cabista waa ka mamnuuc dalka Kuuriyada Waqooyi. halkan iyo muuqaalkeenu ku eegay waa inoo muuqaalka xiga. والسلام عليكم.